الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده وخليله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة كصابصان عودكم اللي يسنكرها ومسألة روتين ولا نوم حلها هاي إن عودك اللي يبسدوا وحاران aanu bannaanayn ka lacagta bixinaya iyo kala siinaya toon laba mas'alo midkood bay ku dhisantay labadubana aanay bannaanayn in lacag lagu qaato. mas'alada koowaad waa rishwa oo qofkani marka uu leeyahay lacag si aan codka kuu siiyo, ama kani uu leeyahay lacagta qaado oo codkaaga waxay noqonaysaa min qabiil rishwa. rishwaduna waa xaaraan. nabiguna sala allahu calayhi wacala alihi wasalam waa nacdalay qofka rishwada bixiya iyo laaluushka ka qaata, ka markhaatiga ka noqda, ka karaaniga u noqda, dhammaantood waa shay muxaram. dhinaca kale marka laga eego waa shahaado, siday culimmada qaarkood ay tilmaameen, waa markhaati. marag furkana lacag laguma qaato. waxaa waajib kugu ah wa aqiimu shahaadata lilah, inaad markhaatiga furtaa waajib bay kugu tahay. inaad markaa xoola ku qaadataa ma bannaana. tii la yidhaahdaba markaa arrinka noocaasi waa muxaram. ka isagu qaadanaya le codkayga kaabkaygu lacag buu ku xidhan yahay, qowlan waaxidan xaaraantaaq weeye. shilin kasta uu qaataana xaaraanayay ku tahay, xaaraan buu cunaya. ka isagu bixinaya tafsiil baa ku jira. haddii uu awoodi karayo inaanu lacag bixin, sidaana uu codadka ku heli karayo, waxaa waajib ku ah inaanu shilin bixin. hadduu bixiyana xaaraan bay ku tahay. haddii ay noqoto laakiin idiraaran ay noqoto, oo de masaladani waxay farac ka tahay masalo kale oo ah qof maysa soo taagi karaa oo ma odhan karaya xallay doorto. taana waynu ishaarnay maalintii hore. waxaynu tilmaamnay culummadu haba isku khilaafaan inay bannaanta bishardi inuu yahay isagu qof niyaddiisuna ay tahay wax hagaajin. waa marka labaadee isagu uu yahay qof aslax ah. haddii xaaladdaa la helo waxaynu way bannaan tahay inuu yidhaahdo waa idoorta. taasay haddaba tani farac ka tahay. waxay farac kaga tahay codkii hadduu xas ka galo oo ummadda ugu khidmayn lahaa, xaskaa uu ka galayna si kale aanu kaga soo saari karin inuu shilimaad u tuuro mooye, qawaaciddu waxay tilmaamaysaa isaga inay suurada u bannaanaanayso inuu bixiyo. oo qof kasta oo xaq uu lahaa uu ka xanibmo, waxaan xaq loogu lahayna lagaga xanibo, culimmadu waxay tilmaamaan waxa uu bixiyaa isaga xaqiisa way u bannaanaanaysaa, laakiin ka qaadanaya mar walba suxti iyo xaaraan bay ku tahay. waxaan markaa murashaxiinta u sheegayaa waa lacagtu yaanayda ka dhammaanin. qaacidaa jirta dadku ay ku dhaqmaan. markaad lacagta guranaysa mid walba u sacabtumoo lacagta ka guro, haddowna ka aad doonayso codka si la cidi kuma oga markaa sanduuqa wax ku ridayseen, lacagta isaga khasaarinaysa. dhaarta beenaalahana waxaan ku talin lahaa inaan cidna la dhaarin. sababtoo ah qof beenaalaha oo aad ogtahay inuu dhaar beena dhaaranayo, dhaarta aad dhaarinaysaa dembiga ubaad kusii badinaysaa. sidaa daraaddeed waxaan odhan lahaa qadiyadda faasidka ah in lala dagaalamo. xoolaha maalmahan baxa waxay inoo hagaajin lahaayeen waddooyinkaa jataban ee magaalada. waxay inoo hagaajin lahaayeen mashaariic waaweyn bay inoo hagaajin lahaayeen. dhammaanteedna waxay tagtaa xuduudda ka tallaabta. qaad baa lagu cunaa, waynu ognahay. ilaahay subxaana wa tacala markaaynu ka baqno. marka masalada khulaasadeedu labada masale iskuwanaa noocay doontaba ha noqotee, cod lacag ku qaado, codkayga saan kuu siiya lacag wax bannaan maaha. wallahu tacala aclam.